maalin wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo xogaha macluumaadka iyo wararkii ugu dambeeyay ee degdega ah ee soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya muuse suudi oo toos ugu biiray dagaalka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka senator muuse suudi yalaxow oo dalbaday ciidankii ugu badnaa oo ka soo jeeda beeshiisa iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo xilligan oo ka bilaabay senatarka aagga Mirinaayo waxaan kula wadaagi doonaa ciidanka muuse suudi yalaxow ka amar qaadanaya ee gudaha u soo galay aagga Mirinaayo dhaqdhaqaaqyada culus oo ay ka bilaabeen halkaasi maxaa ka jira in senator muuse xilligan uu la saftay xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe federaalka Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee arrintan la xiriira qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne Shariif oo dalbaday gurmad ciidan dagaal ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya oo laga cabsi qabo in uu ka dhaco mar kale magaalada Muqdisho xilli xiisada u dhaxaysa mucaaradka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marba marka ka dambaysa ay cirka isku sii shareerayso haddaba maxaa lagu go'aamiyay kulamadii xasaasiga ahaa ee xalay mucaaradka dhaxmaray ma dhabba in xilligan mucaaradku ay doonayaan ciidamo gilgili kara caasimadda inay gudaha u soo galiyaan waxaan kuu soo gudbin doonaa ciidamada uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Shariif ee doonaya in magaalada Muqdisho wacdaraha ay ka dhigaan ee xilligan isku urursanaya gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo xilligan soconaya qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxaa qayb ka noqonaya khilaafka General Odawa Yusuf Raage iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray meel halis ah filla Soomaaliya oo wada qorshe darajada looga xayuubinayo General Odawa Yusuf Raage haddaba maxay isku fahmi la'yihiin generaalka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kuu soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaad sir ah oo laga qariyay oo markaasi ay isku fahmi waayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo General Odawa Yusuf Raage qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya saraakiil caan ah oo hub iyo gaadiid dagaal guryahooda lagala baxay iyaga oo ku sugan furmaha dagaalka iyo saraakiishan oo macallimada uga soo hanjabay furmaha dagaalka haddaba toddobaadyada soo socda maxaa ka dhici kara caasimadda ma dhabba in saraakiishu xilligan ay ka caroodeen falalka uu samaynayo macallin Mahdi oo ah taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxaan kula wadaagi doonaa xogahii ugu dambeeyay iyo macluumaadka arrintan ku aadan iyo ragga caanka ah ee xilligan laga xayuubiyay ee hubkoodii iyo gaadiidkoodii dagaalka ee ku baqan furmaha dagaalka qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalka subscribe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan si toos ah u guda gelaynaa waxaana ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya warkeena taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 bisha June waa maalin Isniin ah soo dhawaada daawadayaal haddii aad haddana la soo qabsatana fadlan waxaan ka codsanaynaa si aad u heshid faahfaahinta oo dhammaystiran muuqaalkan like sar hagaag waxaan ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya muuse suudi yalaxow hogaamiye kooxeed hore senator ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya nin caan ka dhax ah bulshada Soomaaliyeed marka la eego dhinaca dagaalka nin qayb ka noqday qabqablayaashii dagaalka ee sida weyn uga qayb qaatay dagaaladii ahliga ahaa ee ka dhacay burburkii dowladnimadii Soomaaliya kadib magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah dalka ayaa markan si toos ah ugu biiray dagaalka u dhaxeeya dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud senator muuse suudi yalaxow oo caan ku ah deganaanshaha aagga Mirinaayo ayaa la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyo culus ay bilaabeen ciidankiisa isaga oo beesha uu ka soo jeedo ee harti abgaal ka dalbaday in hub culus iyo saanad ciidan intaba ay ku taageeraan iyadoo senatarka laga warqabo in uu qayb ka yahay raggii hogaamiye kooxeedyada ahaa ee xilligan awoodda badan ku leh caasimadda marka loo eego hubka iyo dhinaca saanada ciidanka iyadoo la tilmaamay in uu si toos ah xilligan ugu biiray dhinaca garabka mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda dhexe federaalka Soomaaliya rag badan ayaa baneeyay garabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
waxaana warar iyo macluumaad hoose oo xilligan aan weli bannaanka la keenin aan ku helnay xog ku aadan in garabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan si toos ah uga baxay senator muuse suudi yalaxow kadib markii uu arkay in xaaladdu barakamale ay gaartay sidoo kalena dalkan uu u baahan yahay in uu galo isbeddel maamul islamarkaasina xilligan dagaallo ay ka curan karaan magaalada muqdisho laakiin taasi beddelkeeda la qaadi karo tallaabo ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan uu banneeyo villa soomaaliya arrintaasi oo muujinaysa in xubno badan oo ka mid ah raggii garbaha siyaasadeed ee uu ku duulayay dhinaca dagaalka iyo dhinaca siyaasadda marka loo eego madaxweyne xasan sheekh maxamuud garbihiisa ay bannaynayaan una qayb ka yahay senator muuse suudi yalaxow oo xilligan la tilmaamay inuu bilaabay qudhiisa dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmihii lasoo dhaafay waxa uu qayb ka ahaa ragga diidan in mucaaradku falsafad walba oo ay dowladda ku weerari karaan in ay sameeyaan laakiin hadda waxaa la tilmaamay in isbeddel uu ku yimid fikirkii senator muuse suudi yalaxow sida wararka qaar ay tilmaamayaan inkastoo uusan weli hadlin uuna ka aamusan yahay xaaladaha siyaasadeed ee isdiidan laakiin ila xog ogaal ah oo ka agdhow senator muuse suudi yalaxow ayaa inoo xaqiijiyey in muuse xilligan uu si toos ah ugu soo biiray dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda soomaaliya arrintaasi oo muujinaysa xaalad kale oo aan caadi ahayn oo xilligan dalka uu lugaha la geli karo marka loo eego dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya senator muuse ayaa la tilmaamay in uu xalay kulamo xasaasi ah la yeeshay saraakiisha horkacaysa maleeshiyaadka isaga uu hogaaminayo ee sida tooska ah uga amar qaata ee ku sugan aagga mirinaayo degmada kaaraan iyo meelo badan oo ka mid ah waqooyiga magaalada muqdisho waxaana senator muuse suudi yalaxow xilligan uu dalbaday wiilal farta ka xiran dagaalami kara qaybna ka ah ciidamada macawisleyda ama kuwa xoogga dalka kuwaasi oo iminkaba muuqanaysa in ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya macluumaadka la helay ayaa tilmaamaya iyo ragga oo darorso arrimaha amniga in markii horeba dowladda federaalka soomaaliya iyada gacanteeda ay isku toogatay kadib markii la aas-aasay ciidamo dadka deegaanka ah oo dowladda ka helay hub aad u culus gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale hub fara badan oo ay markaasi ku dagaalami karaan marka loo eego xaaladda xilligan taagan waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr jeer oo hore talooyin lagu siiyey digniino ah in ciidamada macawisleyda ah uusan hubaynin laakiin ay noqon karaan rag isaga marka dambe ku soo biyo shuban kara islamarkaasina la dagaalami kara dad shacab ah oo hub loo dhiibana waxaa ka dhalan kara ay tahay in markaasi damacooda iyagu ay hirgeliyaan iyo wax walba oo ay ku taamayaan marka laga soo tago nidaamka dowladnimada soomaaliya ciidanka macawisleyda ayaa markii ay soo bilowdeen waxay ahayd xooggoodii sanadkii 2022kii markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka laga soo tago in macawisleyda hore ay u jireen laakiin awooddoodii waxa ay markaasi korortay markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib loo doortay arrintaasi oo sabab u noqotay in ay helaan hub iyo saanad ciidan oo ku filan islamarkaasina hadda muuqanaysa in ay doonayaan in ay kula dagaalamaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyaga oo garabka mucaaradka iyo safkiisa xilligan ka soo dhex muuqanaya wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo guriga senator muuse suudi yalaxow ayaa tilmaamaya in ay ka soconayaan kulamadii ugu xasaasisanaa oo ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya wararka qaar ayaa tilmaamaya in senator muuse suudi yalaxow iyo madaxweyne shariif ay ku wada hadleen qadka taleefonka sidoo kalena lala wadaagay in mar walba isbeddel dalkan uu u baahan yahay macquulna aysan ahayn in uu qof dalkan taladiisa iska joogo haddii qof uu joogayana uu joogi lahaa allah u naxariistee jaalla maxamed siyaad barre madaxweynihii xukunka milatariga soomaali ku maamulayay sidoo kalena muddo 21 sano ah dalkan ee markaasi gacanta ku hayay xukun milatari iyo awood aad u fara badanna ee markaasi ay ka muuqanaysay laakiin ugu dambayntii ay ku kaceen jabhado hubaysan kuwaasi oo ka hoos dhashay dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayay jaalla maxamed siyaad barre ugu dambayntiina sababay in 1991kii laga tuuro xilka sidoo kalena laga cayriyo magaaladii muddada dheer uu ku taamayey madaxweyne jaalla maxamed siyaad barre allah u naxariistee oo markaasi dabcan magaaladu ay ahayd magaalo nabdoon islamarkaana jabhadihii kacay xanaaq dartiis ay u kiciyeen ama ay u bixiyeen dowladdii uu hogaaminayey maxamed siyaad barre
xogaha iyo macluumaadka aanu helayno ayaa tilmaamaya in xilligan ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo dhinaca ciidanka ah isla markaana lagu barataarayo howlgallada ka dhanka ah ee markaa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer oo hore looga digay in uu qaado tallaabooyin ee markaasi keeni kara in dagaalo sokeeye dalku ay ka qarxaan laakiin waxaa muuqanaysa xilligan in senator muuse suudi yalaxow iyo rag badan oo garab iyo gaashaan u ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay mid markaasi uga siibanayaan arrintaasi oo sabab u noqon karta xaalad culus oo aan la mahadin karin oo dalkan uu markaasi lagu halageli karo ragga mucaaradka ah badankoodu waxa ay doonayaan inay dagaal adag la galaan dowladda dhexe federaalka soomaaliya lamana oga tallaabada la xiriirta dhinaca dagaalka sida ay ku qaadi karaan waxa ka dhalan kara iyo sidoo kale difaaca ay kala hortegi karto dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee xilligan dalka ka arriminaysa iyadoo mucaaradku ay aaminsan yihiin in sifa sharci darro ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud filada uu ugu hoyanayo isaga oo aanan haysan mandate rasmi ah kii horena uu ka dhammaaday haddaba maxaa ka soo kordhi karaa dagaalka tooska ah ee u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda ee uu ku soo biiray senator muuse suudi yalaxow aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag weli wararkeenna ayaa daawanaysaan saaxiibayaal waqti wacan ayaan idin leenahay meel walbo aad joogtaan markana madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa dalbaday gurmad ciidan iyadoo dagaal ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliyana laga cabsi qabo in uu ka dhaco magaalada muqdisho xilli mucaaradka iyo xasan sheekh maxamuud xiisada u dhaxaysa ay gaartay meeshii ugu adkayd madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa xilligan wada abaabulkii ugu xoogganaa oo dhinaca dagaalka ah ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa beesha harti abgaal ayaa xilligan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa waxa ay ka wadaan duleedka degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin cadale weeyaane ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa xilligan ka wada dowladda federaalka soomaaliya ayaa doonaysa in maleeshiyaadkan qaarkood ay gacanta ku soo dhigto qaarka kalena ay kala ceyriso laakiin waxaa la tilmaamay maleeshiyaadka xilligan madaxweyne shariif uu diyaarinayo in aysan ahayn kuwo loo babacdhigi karo marka loo eego hubka iyo saanada ciidan oo ay gacanta ku hayaan rag wada dhashay isyaqaano kasoo kala jeeda dowlad iyo mucaarad ayaa xilligan laga cabsi qabaa inay isku fara saaraan gobolka shabeellaha dhexe arrintaasi oo ay ka dhalan karto dayacad dhinaca amniga ah sidoo kalena keeni karta in ay fursad u noqoto kooxaha argagixisada ah ee kasoo horjeeda dowladda dhexe federaalka soomaaliya madaxweyne shariif beeshiisa wadahadalkii ugu xoogganaa ayuu la yeeshay gurmadkii ciidan ee ugu badnaa ayuu dalbaday inkastoo madaxweyne shariif intii uu ku sugnaa mirinaayo beeshiisa si weyn ay u difaaceen sidoo kalena ciidamo xitaa lagu keenay dooman iyaga oo ka soo degay ee markaasi xeebta liido arrintaasi oo noqotay mid ama kaag iyo layaab ku noqotay dowladda dhexe federaalka soomaaliya lama oga tallaabada xigto oo ay qaadi karaan xubnaha mucaaradka laakiin saraakiisha ciidanka ee ka soo jeeda beelweynta harti abgaal ama beelweynta agoonyaro gaabane ayaa xilligan waxaa muuqanaysa in madaxweyne shariif dhammaantood ay taageerayaan sidoo kalena ay ka soo horjeedaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud macluumaadka la helayo waxa ay tibaaxayaan in xilligan in ciidankii ugu badnaa la diyaariyey ku dhowaad 2,000 oo askari oo kale marka laga soo tago kuwii horay ee markaasi madaxweyne shariif dabcan uu gacanta ku hayay ayaa la tilmaamay in 2,000 oo askari oo kale oo wata hubka iyo gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan in ay xilligan isku diyaarinayaan duleedka degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe arrintaasi oo muujinaysa xaalad kale oo adag oo magaaladan ay markaasi dabcan wajihi karto maalmaha soo socda haddii aan laga hortagin tallaabooyinka ay qaadayaan xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe federaalka soomaaliya wararka iyo macluumaadka hadda aanu helayno ayaa tibaaxaya in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoog badan oo dhinaca dagaalka ah isla markaana madaxweyne shariif uu mar walba ku taamayo in uu dagaal adag la galo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xogaha iyo macluumaadkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay markaasi soo warinayaan in xitaa la tilmaamayo in madaxweyne shariif dhowaan uu booqan doono gobolka shabeellaha dhexe si uu ula kulmo ciidamada macawisleyda iyo sidoo kale ciidamada isaga loo diyaariyey
ee ka soo jeeda beelweynta markaasi agoonyaro gaabane ee doonaya in ay dagaalka adag la galaan dowladda dhexe federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr jiha iyo dagaal uga furan yahay waxaana muuqanaysa in xilligan dagaalka siyaasadeed iyo midka caadiga ah ee ku furan in uusan si dhaqsi ah uga gudbi karin iyadoo oo aan la gaarin xal ee aanan ahayn xalka hadda ee taagan ee ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya muddo kororsi ay samaysan karto arrintaasi oo si weyn ay uga caroodeen xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya ee xilligan muujinaya dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ee dhinaca ciidanka ah wararka aanu helayno waxa ay tibaaxayaan in mucaaradka kulamadii xasaasiga ahaa ee xalay ay yeesheen ay ku go'aamiyeen laba midood in xaaladdu ay noqoto haddii beesha caalamka arrintan ay soo dhex gasho dhexdhexaadiso doorashada lagu heshiiyo in xaaladda la dejiyo iyo haddii doorashada lagu heshiin waayo in markaasi dagaal adag ay la galaan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaanba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamada uu hogaaminayo iyadoo mucaaradkuna xilligan ay u muuqanayaan kuwa markaasi seefta gasha kala baxay sidoo kalena doonaya in ay ka dhabeeyaan dagaalkooda kulamada xasaasiga ah ee guriga madaxweyne shariif ka soconaya waxay noqdeen kuwo markaasi xarga goostay isla markaana mucaaradku ay uga arrinsanayaan duulaankii ugu cuslaa oo ay ku qaadi rabaan dowladda dhexe federaalka soomaaliya laakiin lama oga sida arrimahaasi oo dhan ay ku suurtageli karaan wuxuu ku soo kordha adiga ayaa ugu horreeya cidda daawata markana khilaafka u dhaxeeya genaraal odawaay yuusuf raage iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray meel halis ah iyadoo filla soomaaliya ay qorshaynayso in ay darajooyinka ka xayuubiso jananka haddaba maxay isku hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo genaraal odawaay yuusuf raage waxaan rabaa inaan kula wadaago xogo iyo macluumaad lagaa qariyey oo arrinta ku dahaaran kulan xasaasi ah ayaa dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo genaraal odawaay yuusuf raage genaraal odawaay yuusuf raage waxaa laga dalbaday in uu soo wareejiyo 2,000 oo askari oo ka tirsan beesha harti abgaal kuwaasi oo iyaga hubkooda iyo gaadiidkooda dagaalka intaba uu gacanta ku hayo sidoo kalena uu sheegto in allaale intii uu doonayo oo dhaqaale ah isla markaana dowladdu ay ku sabood garayn karto waxaa sidoo kale lagu wargeliyey genaraal odawaay yuusuf raage in xitaa isaga uu soo koobo hubka iyo saanada ciidan ee uu gacanta ku haysta ee uu isku difaacayo laakiin genaraal odawaay yuusuf raage waxaa la tilmaamay wadahadal saacado badan qaatay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo genaraal odawaay yuusuf raage ku dhex maray magaalada muqdisho in madaxweyne xasan sheekh maxamuud wejigabax uu kala kulmay sidoo kalena genaraal odawaay yuusuf raage uu runta indhaha ka saaray sidoo kalena uu tilmaamay in aysan macquul ahayn xilligan in uu markaasi joojiyo tallaabooyinka uu qaadayo waxaa la tilmaamay in ciidankan la doonayo in la geeyo xerada la yidhaahdo hiil weyne ee markaasi u dhexaysa ama ku taala controlka la yidhahdo ex control balcad waxaana la tilmaamay in markaasi genaraal odawaay yuusuf raage 2,000 ee askari uu ka dalbaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu ku soo wareejiyo 2,000 ee askari waa kuwii u dagaalamayay madaxweyne shariif iyaga iyo hubkoodiina waxaa gacanta ku haya genaraal odawaay yuusuf raage laakiin jananku waxa uu sheegay in uusan lacag doonaynin ciidankanna isaga aysan ka falmin soo wareejintooda laakiin ay yihiin ciidamo qaab qabiil u abaabulan qabiilkana la doonayo in uu kala hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagana uusan wax lacaga xilligan uga baahnayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo cid kasta oo doonaysa in rabitaankooda lacag ay ku hirgeliyaan waxaa la tilmaamay in genaraal odawaay yuusuf raage intaa markii ay afkiisa kasii dhammaanaysay inuu fadhiga ka kacay sidoo kalena uu ka soo dhex baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo raggii kale ee la fadhiiyey iyadoo caro xoogan ay wejigiisa ka muuqanaysay genaraal odawaay yuusuf raage oo diidanba in uu la shaqeeyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud filla soomaaliya waxaa la tilmaamay markii iridda uu ka degay genaraal odawaay yuusuf raage in aysan jirin wax ka daba tag ah ama qayladhaan ah oo ay muujiyeen laakiin taasi beddelkeeda waxaa la amray in darajada laga xayuubiyo genaraal odawaay yuusuf raage oo ilaa iminka ka biyo diidan in dowladda federaalka soomaaliya uu la macaamilo dowladda soomaaliya ayaa qaadaysa tallaabooyin aad u culus
oo ay ku doonayso in ay markaasi dabcan ku qaado tallaabooyin lagaga hortegayo mucaaradka tallaabooyinka ay qaadayaan waxaana muuqanaysa in ay qaadayso wadadii uu horay u qaaday madaxweyne farmaajo oo saadiq john generaalnimada ka xayuubiyey iyadoo hadda dowladda federaalka soomaaliyana ay doonayso in ay darajada generaalnimada ka xayuubiso generaal odawaay yuusuf raage sida xogaha iyo macluumaadka soo baxayo ay xaqiijinayaan arrintan lama oga waxa ka dhalan karo iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya laakiin soomaaliya dowlad walba oo ka dhalata ayaa muujinaysa in ay markaasi wadayso dhaqdhaqaaqiyo culus iyo wadooyinkii horey ay u qaadeen dowladihii hore ee markaasi dalkan soo maray iyo madaxdii hogaaminaysa intaba oo u muuqda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu aqrinayo cashir horay farmaajo uu aqriyey taasi oo naqdiinkeeda dowladda hadda jirta ay markaasi wado haddaba wixii kusoo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan ugu dambayntiina saraakiil caan ah ayaa la tilmaamay in hubka iyo gaadiidkii dagaalka ay lahaayeen lagala baxay guryahooda iyaga oo ku sugan furmaha dagaalka waxaana saraakiishan furmaha dagaalka ay uga soo hanjabeen taliya macalin mahdi oo garwadeyn ka ah howlgalka hubka dhigista ee ka socda caasimadda ee weliba sida xawliga ah uga bilowda xilligan ninka lagu magacaabo ama sargaalka la yidhaahdo abukar bonow oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dhaqdhaqaaqyada ka wada furmaha dagaalka ayaa loo daatay gurigiisa waxaana laga qaatay hub iyo gaadiid dagaal oo isaga milkiyad uu u lahaa arrintaasi uu ku eedeeyey in uu samaynayo gaashaanla sare mahdi cumar muumin oo ah taliyaha ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa ka waday saraakiil kale oo caan ah ayaa iyaguna la tilmaamay in guryahooda ay ku maqan tahay dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena ay doonayso in ay qaado tallaabooyin markaasi muujinaya in hubka laga dhigayo saraakiishan qaarkood waxay ka soo hanjabayaan furmaha dagaalka waxaana la tilmaamay in xitaa cabsi xoogan laga muujinayo in uu dhaco dagaal u dhexeeya ciidanka militariga saraakiisha hogaaminaysa iyo sidoo kale macalin mahdi oo hogaaminaya ciidanka booliska ee xilligan ku howlan hubka dhigista lagu samaynayo xubnaha ee dowladda federaalka soomaaliya ay uga shakisan tahay in hubka iyo saanada ciidan oo ay gacanta ku hayaan in ay kula dagaalami karaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaaladdu way sii adkaanaysaa saraakiisha qayladhaantooda ayaa baxaysa hubka laga dhigayo macalin mahdina waxa uu ku dhiiranayaa xilligan in uu hubka dhigis ku sameeyo cid walba oo loo arko in ay khalkhal gelin karto amniga dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilligan culaysaadkii ugu badnaa uu ku furan yahay haddaba wixii ku soo kordha adiga ayaa ugu horeeya cidda daawata laakiin aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag haddii aad nagu cusub tahayna waxaan ku leenahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa mahadsantiin daawadayaal waxaan idin leenahay maalin wanaagsan